السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نمون أكسن إنا في عنتي مرة تشيني يا غور كستا إيو غور كستات كسوغنتين بإذن الواحد الأحد ذكي إنتا تشاشيهين با إن وحان دونيا أون آدي excited وقواهاي وآن رنتي آدي وقشاقيني مالمهان دنبه كورس آن ugu magac daray daymanafeed inaan macluumaadkiisa idinla wadaago. waxaan isku baranay intiina badan kabasho iyo duco iyo dareen. saddexdii sane ee aan waday barnaamijka duco iyo dareen iyo sanadkan u dambeeyey oo aan kabasho podcast waday oo ujeedkaygu u ahaa inaan idinla wadaago waxa la yidhaaho daymanafeedku wuxuu yahay, healingku wuxuu yahay, qofku siduu naftiisa uga shaqayn karo, dareemadiisa u fahmi karo, ruuxdiisa gudaheeda iyo waxa ka dhacaya uu eegi karo. inta badan waxaynu maqalnaa qofkaasi uu dhiigbaxay marka nabar uu jirkiisa ku dhaco, laakiin dhiigbaxa dhabtaahi waxa weeyaan ruuxu marka ay xaaladi la soo gudboonaato xaaladdaa siduu ula dhaqmi lahaa ama siduu uu wax odhan lahaa ama siduu uga falcelin lahaa ama ciduu kala hadli lahaa ama siduu dareemada uga imaada xaaladda ama dhacdada uga dhacay uu process garayn lahaa markuu garan waayo. waa marka qofka ay jihadu ka luntaa, waa markuu qofku qof vulnerable oo jilicsan uu noqdaa, waa markuu qofku qof nugul uu noqdo oo wax weeyaan xaaladaha adduunku ay si fudud ay u legdi karaan. waa marka aragtidiisa nololeed iyo adduunyo araggiisu ay isbedelaan oo qof negative soo baxo. waa marka aad social mediaha ka aragto dad negative 24/7 wax negativity ka hadlaya, noloshu inay negative tahay, dumarku inay negative yihiin, raggu inay negative yihiin, soomaalinimadu inay negative tahay, adduunyadu inay imtixaan tahay, kani inuu sidan yahay, dabadeetana drama by drama. waa marka mashaakilkii bulsheed kuwii guriga iyo guurku ay dabada u soo baxayaan. waa markaad aragta dad dhaawacan oo intay guursadaan ay dadkii kale sii dhaawacayaan oo dabadeetana qof walbaaba qofkii kale fadaxadiisa iyo ceebtiisa iyo dhibtiisa uu ka sheekaynayo. waa markaad arkaysa dad si fudud uga xub siibanaya oo waxa weeyaan uga sibqanaya muctaqadkoodii iyo identitygoodii iyo iimaankoodii iyo ahaanshiyahoodii. waa marka aad arkayso ummadii oo qof walbaaba uu difaac ku jiro. waa markaad arkayso iyadoo dadku ay ku mashquulsan yihiin safaasiftii iyo waxyaabihii hoose. waa marka aad arkayso dadkii dhalinyarada ahaa inay laayihiin meel ay talo u doontaan, cid ay wax weydiiyaan, role model ay kor u eegaan oo ay wanaag kaga daydaan. waa markaad arkayso in qofku uu waxa weeyaan ku haafanayo dareenkiisa. haddaba ruuxa bani aadamka ee adduunyadan maanta nooli sida uu biyaha iyo cuntada ugu baahan yahay si leeg wuxuu ugu baahan yahay inuu lahaado ogaal nafeed, inuu naftiisa, hareerihiisa, tagtadiisa, timaadadiisa, xaadirkan iyo taagantan uu imika joogo intaba inuu fahmo. qofkaasaa noqonaya qof survive garaynaya. in badan science-ka waxaad kusoo maqashaa the survival of the fittest. sidaas leeg adduunyada maanta waxaa ku survive garoobi kara, yeelan kara xiriidho taya leh, noolaan kara nolol milgo iyo qurux leh, allahuma salli calaa sayidina muxamed, noolaan karo nolol uu ku qanacsan yahay, samayn kara xiriidho uu ku faraxsan yahay. qofka naftiisa yaqaana, dareenkiisa yaqaana, meeshuu ka imanayo iyo falcelintiisu meeshay kasoo unkamayso intaba garanaya. qofkaasaa sameeya xidhiidho caafimaad qaba. qofkaasaa caafimaadka dhimirkiisu waxa weeyaan haayahay. qofkaasaan ku weereerin oo la falgelin oo ku milmin maalin walba waxa dhacaya. intii aan soo waday barnaamijka kabasho oo 29 xilqadood imika ay soo baxeen, waxyaabaha ugu badan ee la iweydiinayay, su-aalaha ugu badan ee la iweydiinayay rag iyo dumar da' walba ka imanaysa waxay ahayd sidaan naftayda u fahmaa, sidaan dareenkayga u fahmaa, sideen naftayda u cafiyaa, sidee baan dhacdooyinka qaar nololeeda igu dhacay oo ilaa hadda i dabrayo oo dib ii jiidaya aan waxaweeyaan aan uga silsilada furtaa. sidee baan
u kala gartaa dadka noloshayda soo geliya kuwa saxda iyo kuwa aan saxda ahayn. sidee baan u joojiyaa waxa la yidhaaho negative thoughtska, afkaarta negativeka ama taban ee igu soo qulqulaya. sidee baan kalsoonideyda kor ugu qaadaa, sidee baan self-esteemkayga kor ugu qaadaa, sidee baan naf aragayga kor ugu qaadaa, sidee baan qof dhisan u noqdaa, sidee baan familkayga awow ka awow the traumatic oo trauma ay haysato, hadday tahay dareen ahaan iyo hadday dhinacyo kale noloshooda tahay, baan kusoo noolaa biyo aan saacidayn qofka aan ahay, qofka aan rabo inaan noqdo ayaan ku noolahay. sidee baan u jebin karaa generational traumaskaas? su-aalahaas iyo su-aalo ka badan ayaa laysoo weydiiyaa si joogtaa. anigu shakhsiyan waxaan bartay psychology, alxamdulilah. iminkana waxaan ku takhasusaya cognitive psychology, maadaama cilmiga psychologyga ama kasma nafeedku uu u baahan yahay qofka practice garaynaya inuu fahmo nafsiyadda iyo dareenka iyo biicada iyo muctaqadka iyo diinta iyo meeshuu ka imanayo qofka uu waxa weeyaan uu caawinaya. waxaan isku hawlay in aan barto Islamic psychology oo aan waxa weeyaan dhinaca ka barto anigoo cognitive psychology-gaygii raba inaan ku takhasuso. taasi markaa waxay ii sahashay falilaahi alxamdu walminna inaan qofkii fahmi karayo waxyaabaha ku hareeraysan. qofkan Soomaaliga ah ee aan isku afka ku hadlayno ee aan doonayo macluumaadkan iyo xogtan inaan af Soomaali ku gudbiyo, waa inaan garanaya gurigu ka imanayo, waa inaan garanaya waxa saameynaya, waa inaan garanaya habfikirkiisa, waa inaan garanaya muctaqadkiisa, waa inaan garanaya hadba iimaaniyaadkiisu meeshay joogaan iyo siday u saameynayaan hadba xaaladda ku jiro. sababtaasaan initiative-ka ah kabasho oo aan ku doonayo ilaahay wejigiisa in qof kasta oo af Soomaaliga ku hadlaa marka uu dhagaysto inuu ku kabto oo meelunay u qaboojiso aan u bilaabay. caadi may ahayn saraaxatan oo wax ilaahay loogu mahadnaqo. waxa iga soo gaadhay wax weeyaan feedback iyo falcelin yar iyo weyn. aad baan runtii ugu farxayaa. waxaana rajaynayaa in ummaddeenu ay noqoto ummad waaciya, ummad soo jeeda. koraskan daymanafeed waxaanu asas gareeyey oo aan markaan baaritaanka ku sameynayay iyo mawaadiicda aan kusoo qaadanayo kooraska kusoo darayay aan waxa weeyaan aan isku dubariday anigoo maanka iyo maskaxda ku haya baahiyaha ay leeyihiin dadka i dhagaysta. su-aalaha ugu badanee ii imaada, mashaakilka ugu faraha badanee la ila soo wadaago. wuxuu kaa caawinayaa koorasku inaad shakhsiyan horta badan naftaada baratid. naftaada haddaad baratid waxay ka dhigan tahay in aad dareenkaaga baranaysid, inaad shakhsiyadaada baranaysid, inaad falcelintaada baranaysid, in meesha aad ka imanaysa aad baranaysid, in meeshaad ka dhitinayso iyo meesha strengthkaaga iyo waxaweeya meeshaad ka dhisan tahay labadaba aad garan kartid. sababtaasaan daymanafeed ugu bixiyay ama self healing, inuu qofku safar galo. macluumaadka ku jira iyo bugaagta la socota intaba waxaan uga fikiray sida ugu fudud oo isku si waxa uu kooraska qayb uga noqon karaa qof weligiiba psychologyga kusoo dhex jiray iyo qof imika ay ereyga kasma nafeed ugu horeyso. yar iyo weyn, rag iyo dumar, any marxalad nololeedaad ku jirto waa kooras aan rajaynayo biidna alwaaxid alaxad inuu wuxuun ka tari doono dhaymaha naftaada. laba buug baa la socda. buug waa buug guide bookgi ah oo tusmada buugga iyo koorasku sida uu u soconayo step by step waxa weeyaan ku hagaya. buugna waa buug workbooka oo buugga shaqada ah, shaqada uu qofku ku qabanayo maaha waxaad iska dhegeysanayso, waa shaqo dhab ah oo aad naftaada ka qabanaysid adigoo ilaahay kaashanaya aqoontaad naftaada u leedahay iyo ogaalkan cusub eed helaysa labadaba kaga shaqaynaya. koorasku wuxuu furmayaa wiigan gudihiisa beriyo jimcaha haddii ilaahay idamka ka dhigo. linkigan xagga sare aan kusoo lifaaqay ayaad iska diiwaan gelinaysaa. sidaas ayaad qayb kaga noqonaysaa kooraska daymanafeed biidni alwaaxid alaxad.